Ku soo dhawaada sheeko xiiso badan oo sawir ka bixinaysa sida ay ahayd nolosha rag badan oo aad mas'uuliyiin ama madax u taqaanaan inta aysan siyaasadda soo gelin. Sheekadana ha inoo bilaabato. Waxa uu fadhiyaa qaybta labaad ee maqaayadda Horyaal. Waa maqaayad weyn oo aad looga yaqaan magaalada California oo idil. Dhowaantan ayuu ka shaqo bilaabay, maamulka sare ayaa ku kacsan. Habacsanaantiisa ayaa qancin weysay in shaqada laga ceeriyo buu halis ugu jiraa. Kursi weyn ayuu dhabar ugu jiifaa. Daqiiqado ka hor ayuu ka soo rawaxay shaqadii. Xanta hoose ee maamulka ka soo gaarayso ayaa tibaaxayso in dhowaantan lagu soo wajahan yahay. Dhowr mar ayuu dayacay shaqadii loo xilsaaray. Marar badan ayuusan dhammaystirin shaqo looga baahnaa. Kol kalena si aan hagaagsanayn buu u xalay alaab loo xilsaaray nadiifinteeda. Dacwooyin badan ayaa ka yaal xafiiska. Eedayn aan dhammaan baa hareeraysay. Dabci xumadiisana shaqaalaha oo idil qaati bay ka taagan yihiin. Balwado badan oo aan wanaagsanayn buu leeyahay. La dhaqanka iyo dhexgalka shaqaalaha ayaa dhib ku noqotay. Mar uu wax ka soo dhargay oo uusan qaabsan u socon, iyo mar uusan si hagaagsan u soo labisan oo uu ku indho wasakh leeyahay ayay noqotay. War istoosi baa lagala daalay. Digniino badan baa loo soo diray. Waxse wuu ka qaadan waayay. Shirar badan oo ay si hoose maamulka maqaayadda u yeesheenna in la eriyo bay ku soo dhammaadeen. Go'aan qaraar oo uu ka warhayo baana ku soo wajahan. Meel uu ciirsada ma yaqaan, shaqo kale uu qabtana meel kuma ogo. Xirfad ma lahan, aqoon haba joogtee. Dhowr eray oo Ingiriisa buu ka bowsaday dadka uu la shaqaynayay, ayagana inaysan waxba goyn waa ka dheragsan yahay. Talo baa ku caddaatay. Asaga oo halkii fadhiyo ayuu ku soo maray mid shaqaalaha ka mid ahaa, aadna uga xog hayay qalafsanaanta iyo qaabdaradiisa. Kolkaas buu yidhi, waryaa wax matare, miyaad fakaraysaa caawa? Waa adigan cirka eegayee. Markaas buu qosol jees leh qoslay oo u raaciyay, wanaagsanaan lahaydaa haddaad bataqaan qaabka loo fekero. Si cara leh buu u eegay, malaha in hadalkaas wax ka jiraan buu yaqiinsadaye wax jawaab ah uma celin. Tabtaas bay ugu digtaan shaqaalaha. Marka uu maqan yahay, booskiisa lama tabo. Kolka uu joogo lama xisaabsado. Marka uu baxayana in duco loogu daro mooyee cidna joog ma tiraa. Tiro mooyee tayo laguma xisaabsado. Muuqiisa lama jeclo, maqalka magaciisana laguma diirsado. Waa barkumataal. Wixii loo tilmaamo mooyee isma diryo, isma hagyo. Istoosi in la yiraah mooyee si kale kuma tooso. Waad qalloocan tahay in dhegta loogu sheega mooyee isma dareemo. Wixii loo tilmaamo unbuu qabtaa. Wixii qaba la yiraah buu u degdegaa. Wax kale haba joogtee mar baaba loo sheegaa in jirkiisu uu hagaajiyo. Qarmuunkiisa kolka dadku ka joogi waayaan baa ishagaaji la yiraah. Dal iyo dad war uma hayo. Dalkii waagii uu ka soo tegay baa ugu dambaysay. Waalidiintiisu dhowrkii biloodba mar buu la hadlaa. Wax uu u dhiibo iska daaye, inala soo hadal bay ku kari la'yihiin. Wuxuuse saaxiib dhow la yahay odayaasha reerkiisa. Madaxweynta tolka ayuu ka ag dhowaadaa. Sanadkii mar buu wax u diraa. Waa beer la hawsadaa. In xilka tolka raalli ahaanshahooda lagu helo markii uu ogaaday buu isku talay. Caawa waa inuu fekeraa. Kama fekerayo wax dantiisa dhaafsiisan. Wax uu dhuunta mariyo unbuu ka fekerayaa. Waa in xeelad kale la helaa oo lagu quudiyo dhuuntan. Waa in la helaa xeelado kale oo si wanaagsan loogu baashaali karo. Kolba haddii uusan maqaayaddan baas joogis u aalin, waa inuu u sahan tagaa raas kale oo cusub. Goobo badan ayaa ku soo dhacay. Hoteel jaarkiisa ah oo shaqaale dhulka xaaqa u baahan buu soo xasuustay.
Kol kale, islaan sheeb ah oo shaqaale hawsha guriga ka caawiya u baahan baa ku soo dhacday. Asaga oo sidaas isla hadal ugu jiro, fikirna hareeya maskaxdiisa baa waxaa soo garaacay oday nabadoon isku sheega oo jilib weynta tolkiisa ka mid ah. Halhaleel buu kaga qabtay. Sheeko dheer kadib, wuxuu ugu bishaareeyey in mar dhoweyd in adeerkiis loo magacaabay wasiir. Aad buu ugu farxay. Wuxuu kaloo u sheegay in wasiirka iyo waxgaradka beesha isla garteen in la soo qoro dad fara badan oo dowladda laga shaqo gelin doono. Wuu ku sii farxay. Wuxuu kaloo u sheegay inay doonayaan in dadkaas lagu daro. Fadhiga buu ka kacay, wuu kala batay, qaylo buu afka furtay. Wuu ishayn kari waayey, ilin farxadeed baa ka timid. Wuxuuse isyara dejiyey markii loo sheegay in dhowaantan uu soo qalab qaato kuna soo talageliyo shaaxa odayaasha beesha ee xilkan adag u soo dhiciyey. Dhidid baa fix ka soo yiri. Waa asagan busaarad dilootaye halkuu diyaarad raac ka keeni oo uu haddana leejada odayaasha isaga bixin. Talaa mar kale ku caddaatay. Waa fursad iyo caqabad isku qobtolan. Mar waa fursad oo waxa uu si fudud kaga baxayaa busaaradan la degtay muddada badan. Maqaayadan foosha xun buu isaga tegayaa. Mas-uul sare buu noqonayaa. Siyaasi baa lagu sheegayaa. Hanti badan buu urursanayaa. Maal iyo magac buuna dhaxlayaa. Yaa ka fiican waxaas oo dhan. Soo waxa inan rageed isku dila ma aha. Dhanka kale waa caqabad hor leh. Kama welwelayo xilka loo magacaabi doono. Intee in le'eg ayuu aqoon u leeyahay. Maxaa yeelay waa ogyahay in aqoontu muhiim ahayn in wax uun la iska walaaqdo. Saa haddii aqoon la isku doorto lama soo raadiyeene. Waxa uuse ka walbahaarayaa sida iyo waxa uu ku qancin doono cuqaasha tolka nabadoonnadii xilkan culus u soo dhacshay. Sidoo kale waxaa welwel ku abuuray sida uu halkan uga ambabixi lahaa. Qarashka safarkiisa ku baxayo baa utun kale ku abuurtay. Abaar rag waa talo la'aane, tala buu isugu laabtay. Waxa uuse durbadii soo xasuustay mid seedigii ah oo ay maraakiib badan u shaqayso, hantina uu ku tuhmayo. Durbadiiba xaggiisa buu qabtay. Markii uu u tegay buu kaga warramay sida ay arrini u taal iyo waxa uu ka doonayo. Aad buu ugu farxay seedigiis. Markii uu maqlay in Soomaaliya xil looga magacaabi doono, ballanqaad buu u sameeyey. Talooyin badanna waa uu siiyey. Inta xilka uu ka qabanayo, hiil iyo hoo inuu la daba joogo buu dhegta ugu shubay. Kolka xilka uu qabtana in toogtiis u miiso buu u dardaarmay. In uusan dhabcaal noqon oo ka faa'iidaysta xilkan, maal fara badanna ka tabcado buu kula taliyey. Si diiran buu ugu miisay talooyin badan oo gebigood ku qotomo dhagar iyo boob. Waxa ayse ku soo kala tageen balan adag in inta xilka loo magacaabayo la garab qabto. Kolka xilka uu qabtana markiisa soo miiso bay ku heshiiyeen. Halkaas bay ku soo kala dareereen. Muddo kadib dalkii ayuu ka degay. Lacagtii seedigiis buu odayaashii ku qanciyey. Wasiirkii buu la kulmay, way wada sheekaysteen. Wasiirka waxa uu ka cudur daartay in wasaaraddiisa boos ka siin karaynin oo dad badan oo beesha ah joogaan. Cunaaye, boobe, boorow, haabaan, liqaaye, laandheere, manexe, kadare iyo kuwo kale buu u soo tirshay. In raggaas oo wasaaradda joogo qof kale oo beeshiisa geeyo waxay la noqotay fashil xilkiisa ku yimaado iyo in bulshadu si cad u fahamto. Laakiin waxa uu ugu bishaareeyey in madaxtooyada geyn doono. In qolada madaxtooyada oo ay aad isugu fiican yihiin u geyn doono. Yeelyay, aqbal iyo ajiib ayaana lagu soo kala huleelay. Maalmo yar uun dabadeed, markii uu wasiirka la hadlay jaalayaashiisa madaxtooyada joogeen, waxay isku afgarteen in xil cusub oo aan xafiis joogto ah lahayn loo magacaabo, in mushaarkiisa joogto u qaato. Galabkii uu isaga soo sheex doonto madaxtooyada, waxaana loo magacaabay agaasimaha kala agaasinka qorsheeyaha kala qorsheeyaha madaxtooyada.
waa xil gacan ku rimis ah oo aan xataa xafiis loogu shaqeeyo lahayn. Mushaar fiican buu ku qaataa, maalin walbana dhacdhac aan xisaab lahayn baa soo gaara. Siyaasiyiinta ayuu ku dhex milmay, shaqooyin badan oo aan loo jeedin buu qabtaa. Hantiilo yaab leh ayuu noqday, afarta geesna lacagaha u kala dira. Maqaayadii xumeyd buu ka raystay, Hamijan oo hor leh baa ku dhashay. Magaciisa hore oo wasakhda lahaa buu beddelay, wuxuuna isku sheegaa aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda tan Soomaaliya iyo Afrika. Qurbo joog wax badan og, nin u soo naxay dalkiisa oo u soo laabtay, iyo sifooyin kale oo yaab leh. Waa qalinkii Cabdikariim Shardi. Haddaba haddii aan sheekadan ka tusaale qaadano, ma la oran karaa siyaasiyiinta qaabkan oo kale ayay ku soo galaan saaxadda siyaasadda? Waa xaqiiq, qaar badan markay qurbaha ku soo wareeraan waxaa ku dhalata fikrad ah dalkaaga iibso, cid kula xisaabtamaysa ma jirtee, jeebkaaga buuxso oo cidna waxa u qaban. Ileen Soomaalidu waa kuwa kuu mashxaradaynaya adigoon xabadna u qaban. Waxaa iga afeefa, muuqaalkan cid uu si gaara u taabanaya ama ugu socda ma jirto. Sheekadan intii aad daawanaysay, fikraddaada inala wadaag, maxaad dareentay? Asxaabta kala gaarsiiya oo muuqaalka hadda inoo sheer gareeya.